بسم الله الرحمن الرحيم halkani waa sahan academy hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha waxaynu halkan ka bilaabeynaa course markaasi aynu ugu magac darnay essentials of computer applications oo ECA aynu u soo gaabinay course-ka wuxuu markaasi u qaybsamaa ilaa iyo dhowr qaybood qaybahan ama cashiradan oo markaasi taxanayaasha ah waa markaasi concepts way qaybtan yani shantan cashir ugu horeysa waxay noqon doonaan concept guud oo markaasi aynu ka siin doono wax la yiraahdo computerka shanta cashir ee xigta waxaynu markaasi kaga hadli doonaa Windows-ka gaar ahaan aynu isticmaali doonaa Windows 10 ayaan isticmaali doonaa haduu alayidmo shanta cashir kale ku xigta 10 ilaa iyo 15 ama 11 ilaa iyo 15 waxay noqon doonaan haduu alayidmo MS Word ayay markaasi noqon doonaan 16 ilaa iyo 20 waa waxaynu ku baran doonaa MS Excel halka 21 ilaa iyo 25 aynu ku baran doono MS Access halka 26 ilaa iyo 30 waxaynu ku baran doonaa PowerPoint soddonkaas cashir ayay course-kan ka kooban tahay inta course-kan uu socdo waxaan filaa marka wax walba oo caqabad ah in markaasi aad nala soo xiriiri doontid waxaad nagala soo hadli kartaa WhatsApp aad nagala soo hadli kartaa sidoo kale Telegram ayaad nagala soo hadli kartaa course-kan ku talagalku waa free way waxa ka faa'iideysan kara qof waliba oo u baahan in uu wax barto waa uu ka faa'iideysan kara sidoo kale course-ka markuu dhamaado waxa markaasi markaad dhamaysato course-ka waxaad geli doontaa examkaas markaad ku guuleysatane waxay markaasi Sahan Academy ku guddoonsiin doontaa shahaado ayay markaasi ku guddoonsiin doontaa marka course-ka sidaas oo noqon doona basic concepts waaye marka shan cashir oo markaasi base ah oo concept laga siinayo faham laga siinayo way lesson 1 qaybta koowaadna waxaynu kaga hadli doonaa waa introduction oo ah markaasi hordhac ku saabsan computerka hordhac ku saabsan ayaan cashirkan uga hadli doona shantan cashir saan hore u sheegay waa basic concepts kuwa kalena waxay noqon doonaan haduu alayidmo Windows-ga gaar ahaan Windows 10 ayaan markaas ku baran doona marka overview aynu qaadano marka hore waa aragti guud oo ku saabsan computerka waxa la yiri in today's world dunida hadda aynu joogno waxaan isticmaalna computer ayaan isticmaalna ama computers ayaan isticmaalna computer for all our tasks dhammaan hawlaheena maalmeed waxaynu u isticmaalna computer ayaan u isticmaalna hadii aan rabno inaan wax dalbano ganacsi hadaan rabno inaan sameeyno waxaan isticmaalna computer hadii aan rabno inaan qof la xiriirno waxaan isticmaalna computer waxa waaye hawlaha aynu qabano oo dhan hadeertan waxaynu markaasi adeegsanaa waa computer dunida hadda aynu markaasi ama xilligan hadda aynu joogno way our day to day yani maalmaheena oo maalinba maalinta ka dambaysa activities-ka aan sameeyno activity-ga ama hawlaha maalinlaha ah ee aan sameeyno oo ay kamid yihiin paying bills oo markaasi ah bixinta biilasha buying groceries oo markaasi ah iibsashada badeecooyinka using social media isticmaalka aaladaha bulshada ay ku xiriirto seeking entertainment yani dareemida wax la yiraahdo mujaajilada working from work guriga in laga shaqeeyo communicating with a friend in markaasi lala xiriiro saaxiib etc iyo sidoo kale wixii la mid ah intaan oo dhan ee hawlaha hawl maalmeedka can all be done waa la qaban karaa using iyadoo la isticmaalayo computer iyadoo la isticmaalayo ayaa la qaban karaa yani waxa way bixinta biilasha alaab in la iibsado dadka markaasi inay isticmaalaan social media entertainment qofka haduu rabo mujaajila haduu rabo inuu guriga ka shaqeeyo haduu rabo inuu dad la xiriiro haduu rabo qofka dhammaan hawlahaas maalinlaha ah waa la qaban karaa iyadoo markaasi la isticmaalayo waa computer iyadoo markaasi la isticmaalayo marka computerka meesha waxaan ka fahmi karnaa in kaalin weyn uu markaas ka qaato noloshana sidaas daraadeed marka it is important computerku waa muhiim not only to now kaliya muhiim uma ahan in markaasi aad ogaato ama aan ogaano how to use computer how to use a computer sida computer loo isticmaalo kaliya inaan ogaano muhiim ma ahan but also and to understand sidoo kale waxa muhiim ah in markaasi aynu fahanno the components of computer waxyaabaha uu computerka ka kooban yahay and what
what they do iyo sidoo kale waxyaabaha computerka uu ka kooban yahay yani waxa ay qabtaan inaynu fahano waa inoo muhiim marka computerka muhiim kaliya uma ahan sida loo isticmaalo kaliya inaan barano isaga waxa uu ka sameeysan yahay waa inaynu barana sidoo kale waa inaynu la barana qaybahaas isaga uu ka sameeysan yahay sida ay waxyaabaha ay qabtaan sida ay u shaqeeyaan waa in markaas aynu barana oo muhiim ay noo tahay waayo hadii computerkaaga aad ku shaqeyso ama bill aad ku bixiso ama badee aad markaas ku iibsato ama social media aad ku isticmaasho ama entertainment aad ku isticmaasho ama guriga aad kaga shaqeyso ama saaxiib aad kala xiriirto yani waxa hadii uu ka halaabo yani adiga inaad si aad u farsamaysato waxa uu ka kooban yahay inaad ogaato iyo sida markaas uu u shaqeynayo waa in markaas aad ogaato waa aad iyo aad ay muhiim u tahay this topic marka topican ama mawduucan oo conceptska fikradaha oo markaasi ama fahamka guud ee computerka explains marka waxaan markaasi lagu sharxa all concepts dhamaan conceptska ama fahamka related to la xiriirta computerka la xiriirta in detail si faahfaahsan ayaan markaasi topican ama qaybtan aynu kaga hadli doonaa oo 5 cashir ah oo kan uu ugu horeeyo from origin to end yani meesha uu ka soo bilowdo computerka ilaa meesha uu ku dhamaado faahfaahin guud ayaan markaasi ka siin doona and the idea marka fikrada oo ah computer literacy is also discussed waxaynu kaga doodi doonaa hadoo alla idmo ama aynu kaga hadli doonaa computerka isaga aqoon-yahan ma yahay yani wax ma qori kara waxna markaasi ma akhrin kara waa isagana sida uu wax u qoro sida uu wax u akhriyana waaynu markaasi ku qaadan doonaa qaybtan oo basic concepts oo essential of computer applications ayaan ku qaadan doonaa which includes kuwaas oo isugu jiraan definition oo qeexitaan oo computerka waxa uu yahay ama functions iyo shaqooyinka of computer oo computerka qabto yani fikrada computerka isaga wax ma qoraa waxna ma akhriyaa oo literacy-giisa waaynu ka doodi doonaa hadoo la discuss ayaan markaas ku sameyn doonaa sidoo kale waxyaabaha aynu qaadan doono waxa kamid ah qeexitaan iyo shaqooyinka uu qabto waxa la yiraahdo computerka uu qabto markana aynu aadno definition isoo markaas qeexitaano waxaynu qeexi doonaa computer muxuu yahay data maxay tahay information maxay tahay meeshan ayaynu markaas ku qeexi doonaa aynu ku horumarno marka hore a computer waa computer way is an electronic device way waa qalab koronto ku shaqeeya way that accepts kaasoo markaas qaabila data ayuu qaabila xog oo from laga keenay the user yani xog oo computerka qofkan uu gelinayo yani waxa way isaga qaabilayo yani tusaale qofkan wax ba ku jira wuxuu rabaa tusaale magacaygu waa Saciid inaan qoro ayaan rabaa tusaale soo marka waa data way taas datadaas computerka ayaan gelinaa kadibna yani isaga wuu aqbala userku waa anigu acceptable ama qofka ama waxa qabanayo waa computerka way sidoo kale wuxuu sameeynaa process it waxa uu ka shaqeysiina waxa aniga aan qoray oo magacaygu waa Saciid ayaan qoray tusaale yani isaga uu ka shaqeysiina marka uu ka shaqeysiyo kadib produces results natiijooyinka ayuu soo bandhiga kadibna maxaa dhacay displays them to the users waxa la qoray kadib waxa markaasi uu soo bandhiga qofka isticmaalaha marka intaan oo dhan ayuu qabtaa computer waxa an electronic device that accepts kaasoo qaabila data ayuu qaabila wuxuuna ka qaabila from user ayuu ka qaabila datadaas uu ka qaabilay hadana process uu ka shaqeysiya yani datadaas way produces results natiijada ka soo baxday datadaas qofkan isticmaalaha uu geliyay ayuu soo saara displays markuu soo saaro kadib natiijada soo baxday kadib ayaa wuxuu u soo bandhiga users ayuu markaas u soo bandhiga dadka markaas isticmaalayaasha ah and stories sidoo kale wuxuu kaydiyaa the results natiijada for future usage si mustaqbalka loo isticmaalo tusaale waxaan qoray magacaygu waa Saciid marka taas waxa way computerka wuxuu sameeyay accepts data from user yani wuxuu aqbalay datada userka oo Saciid ah ayuu markaas ka aqbalay kadib wuxuu sameeyay process yani waa uu ka shaqeysiyaa wax markaasi la amray kadibna wuxuu soo saaraa natiijo ayuu soo saaraa results ayuu soo saaraa resultska ayaa wuxuu markaasi kadibna wuxuu sameeyay displays them wuxuu soo bandhigaa resultska waa userska ayuu ku soo bandhigaa
marka uu soo bandhigo kadibna wuxuu sameeyaa stories wuxuu kaydiyaa resultska sababtuna waxay tahay for future usage si mustaqbalka loo isticmaalo yani tusaale hadda waxaan qoray magacaygu waa Saciid Yuusuf ayaan qoray processkii hore oo dhan uu soo maray oo ah accept this data from user process to produce results displays them yani uu soo bandhigay kadibna marka la save gareeyo kadib maalin kale hadaan soo laabto waxaan heli karaa yani xogtan oo ah magacaygu waa Saciid Yuusuf marka waxa way for future usage way loo kaydiyaa xogaha loo kaydiyaa waa si mustaqbalka loogu isticmaalo markana waxaan aadaynaa waa data way computer hada waynu soo fahnay hatta shaqooyinka uu qabto yani waxa way sida uu u shaqeeyo hada waa fahnay wax uun waynu ka fahnay data marka maxaa la yiraahdaa waxa la yiri is a collection of an organized facts way yani waxa way ururis ay urureen xaqiiqooyin aan habaysnayn aan figures iyo figaro oo jaantuusyo aan habaysnayn aan organized ah yani ururis ay urureen way and does not provide mana siiyo any further information warbixin dheeri ahna ma siiyo regarding markaasi marka la barbardhigo patterns shaxaha context markaasi waxa markaasi isaga uu ku soo etc iyo sidoo kale wixii markaasi la mid ah hees halkaas marka data means macnaheedu waxa way data definition keeda waa kana waa unstructured facts and figures waa jaantuusyo iyo xaqiiqooyin aan dhisnayn yani aan habaysnayn aan organized ah ayaa data lagu magacaabay yani waxa way xog dhameystiran xogta markay dhameystiran tahay ama aysan dhameystirneen ama aysan hagaajisnayn ayaa waxa lagu magacaabaa data lagu magacaabaa information waxa la yiri waa cagsi ay ku tahay marka datada waa structured data way data oo markaasi habaysan oo dhisan way waxa la mid ah marka ay waxa loo isticmaalaa waxa la mid ah organized meaningful waxay leedahay macno dhameystiran oo hagaagsan ay leedahay processed data yani xog markaasi laga shaqeeyay oo la soo bandhigay way to process marka si looga shaqeysiyo datada si looga shaqeysiyo and convert looguna bedelo into information loogu bedelo computer ayaa is used isticmaalay yani xogtan datada iyo information shaqadaas oo dhan computerka ayaa markaas isticmaalay so marka waxaan fahnay computer waxa la yiraahdaa data waxa la yiraahdaa information waxa la yiraahdaa qaybtana waxaynu ku qaadan doonaa waa abbreviation wax laga soo gaabiyay computer so marka the term computer stands for area computer markaasi waxa laga soo gaabiyay sidu waa common O the operating, M to a machine, P to a particularly, U to a used for, T to a teaching, E to a education, R to a research. So marka waxa markaasi base looga dhigay shaqada isaga uu qabto ereyga computer wuxuu u taagan yahay waa common operating machine way waa qalab si guud ahaan u shaqeeya way particularly si gaar ahaaneedna used for waxa loo isticmaalaa teaching waa loo isticmaalaa wax baridda education yani waxa way majaalka waxbarashada waa loo isticmaalaa iyo sidoo kale research cilmi baarisna waa loo isticmaalaa soo marka abbreviations badan ayaa jira laakiin midkan ayaa ah kuwa markaasi wuxuu ka mid yahay kuwa ugu caansan ayuu markaasi ka mid yahay soo marka abbreviationska oo computerka waa kana markana waxaan aadaynaa waa functions way shaqooyinka of computer ay qabtaan computerska shaqooyinka ay markaasi ayagu ay qabtaan computer marka ka hadlayna computerka performance wuxuu qabtaa the following functions ayuu qabtaa shaqooyinka soo socda ayuu qabtaa mid koowaad waxa la yiraahdaa receiving input waxyaabaha la geliyay oo computerka la geliyay in markaasi uu qaabilo tusaale magacaygu keyboard ayaa ku qoray yani wax baa la gelinayaa computerka ilaa magac baa lagu qorayaa la gelinayaa soo marka inuu qaabilo shaqada ama shaqooyinka computerka uu qabto ay kamid tahay datada marka ka hadlayna is fed into a computer waxa qoodanaya datada waxay raashin u tahay computerka waxa raashin u ah datada way yani waxa uu isticmaalayo yani waxa way datada way oo information isagu waxa uu soo bandhigo ayaa information ah waxa la gelinayo waa data ilaan wax dhameystiran oo markaasi la soo bandhigay ma ahan marka datada waxa markaasi uu qooto oo raashin ahaan uu isticmaalo waa computerka through various marka datadana wuxuu markaasi u helaa computerka various input devices qalabyo computerka wax ku shuba ee kala duwan ayuu markaasi ka helaa like sida keyboardka oo qaybta markaasi wax lagu qoro ayaa wax lagu magacaabaa keyboard mouse iyo kamid ah digital pens qalimaanta digitalka ah ee loo isticmaalo maxay projectors iyo sidoo kale dhalooyinkii loo isticmaalo ee touchka etc iyo sidoo kale wixii markaas la mid ah soo marka keyboard iyo mouse iyo digital pens waxay tusaale u yihiin waa input iyo markaas qabtaan computerka iyo wax ku shubaan way inputka markaan ka hadlayno yani ku shubidda computerka can also be fed sidoo kale wuxuu markaasi ku qaadan karaa computerka through devices qalabyo oo CD-ROM pen drive scanner etc dhamaantoodii computerka iyo markaasi wax ku shubaan way soo marka hadaf
objectivekeenu waa receiving inputs inaynu fahno computerka in markaas uu wax la geliyay inuu helo. shaqada labaad ee computerka uu qabto waa processing the information, yani inuu ka shaqeysiyo informationka, inuu markaas ka shaqeysiyo wax la geliyay, datadii la geliyay markaas xog badan noqotay, isku imaaday, organized noqotay, in markaas uu ka shaqeysiyo shaqada labaad way. So marka operations marka hawlaha ama shaqooyinka on the input data xogtii markaas computerka lagu shubay are carried out waa la qabtaa. shaqo ayaa marka laga qabtaa based on iyadoo sal looga dhigayo the instructions amarada provided in the programs markaas ay siiyaan programyada ay markaas ayagu ay siiyaan. shaqada saddexaad waxa la yiraahdaa storing the information, inuu keydiyo informationka ama xogtan dhameystiran in markaas uu keydiyo. after processing marka laga shaqeysiyo xogtan kadib the information warbixinta gets stored waxay noqonaysaa mid markaas la keydiyo in noqonaysaa in the primary loo keydiyo ama secondary storage area in lagu keydiyo. ilan storage area meelaha wax lagu keydiyo primary iyo secondary. primary yani meel iska fudud waa, secondary na meel oo markaas kale in markaas lagu keydiyo, yani desktop ka waa primary wala secondary in local disk gaar ah aad markaas adiga u samaysato. shaqada afraad ee computerka uu qabto waxa la yiraahdaa waa producing outputs, waxa way inuu soo bandhigo wixii markaas lagu shubay, laga shaqeysiyay, la keydiyay, in markaas uu soo saaro, uu soo bandhigo. waxa la yiri the processed information, warbixinta laga shaqeysiyay, and other details iyo faahfaahinta kale ee markaas dheeriga ah are communicated to the outside, waxa markaas lala soo xiriiriya, yani outside ka computerka ama outside world ayaa markaas loo soo bandhiga throughout iyadoo loo marayo maxay output, yani waxa weeye qalab markaas soo bandhiga output device iyadoo loo soo bandhigay like sida monitor, dhalada, printerka, yani waxa lagu qoray wax baa la qoray, keyboardka wax baa lagu qoray, kadibna printerka ayaa soo bixiyay, monitorkii wax baa la qoray, wixii bay soo muujisay. so marka waa producing output ayaa markaas lagu magacaabaa. waxaan filayaa markii casharkan si fiican loo fahmay. intaynu ku soo gabagabeynayna casharkeena, intaynu ku kulmi doonno casharka xiga, waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadino. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.